Askar ka wada tirsan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya ku sugan gobolka Gedo ayaa isku dilay degmada Luuq ee gobolkaasi. Askarta dagaalantay oo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM gaar ahaan ciidamada Itoobiya ayaa waxaa dagaalkoodu soo jiitamayay in muddo ah sida dadka deegaanku inoo sheegeen kadib markii ay wada jeclaadeen gabar askariyad la ah oo ciidamada Itoobiya kala tirsan. Labada askari wada jeclaadeen gabadha ciidamada Itoobiya kala tirsan ayaa markii ay jacaylka ay u qabaan gabadhaasi mid ugu bandhigteen waxa ay u sheegtay sida inoo sheegay in ay ka wada aqbashay balse arrinkaasi ay u wada cuntami waayeen labada askari oo midba midka doonayo kuwaasoo dhibana jacayl u wada noqday gabadha ciidamada kala tirsan oo ay ka wada heleen balse ay iyadu isku dayi jirtay in ay ku wada qanciso in labadooda ay nolosha la wada wadaagi karto. Dilka askarta Itoobiyaanka ah ayaa yimid kadib markii muran gacan ka hadal ah uu soo kala dhex galay labada askari iyagoo markii dambe qori isku qaatay sidaasina isku wada toogtay. Dadka ku sugan Luuq ayaa inoo sheegay in askarta murankoodu uu ka dhashay haweeney saaxiib la ahayd labada askari ee Itoobiyaanka ahaa waxaana goobta falku ka dhacay laga qaaday meydadka labada askari oo rasaas ay isku fureen u wada dhintay. Degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ayaa waxaa ku sugan ciidamo Itoobiyaan ah oo qayb ka ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM iyadoo ciidanka dowladda federaalka ah kala qayb qaata howlgallada dagaalada ay fulinayaan.